مثلا xiriir weyn buu la leeyahay muddo dheer oo 8 sano 10 sano ku dhow xiriir wada shaqeyn uu la leeyahay xiriir wuxuu la leeyahay shaqaale uu yahay buu wada shaqeyn xataa ma shaqaale uu yahay wuxuuna ka mid yahay dad aan xogtooda haynay oo markastana khatarahooda aan ka hortagi jirnay. halkani waa dunida media daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan dunida media. haddii ay tahay marka kugu horeysa channelka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto gambaleelka aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino. waxaan barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda maanta kaga hadli doonaa ama aan ku falanqeyn doonaa taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin oo ka hadlay in Mahad Salaad uu yahay nin 12 sano la shaqeynayo ururka Al-Shabaab. waa taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin oo sucad u sheegay inuu madaxweynaha haatan talada dalka ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu digay inuu Mahad Salaad u magacaabo taliyaha NISA. waxa uu Fahad Yaasiin sheegay in qof walba oo xubin ka noqonaya NISA ay habboon tahay in lagu sameeyo baaritaan dheer lana ogaado waxa uu yahay, maadaama aniga dalka qayb ka yihiin gacantana ku hayaan siraha dalka. ha yeeshee madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku madax adeegay inuu magacaabo Mahad Salaad taliyaha NISA isagoo ogsoon in Mahad Salaad uu yahay nin xubin ku leh ururka Al-Shabaab. Fahad Yaasiin ayaana aad ugu xumaaday arrinkaasi. Mahad Salaad waa nin Al-Shabaab la shaqeeyay muddo 12 sano ah ilaa haddana u gudbiya siraha dalka ururka Al-Shabaab ayuu yiri. waana sababtay u soo badanayso inay shabaab dhibaatooyin u geystaan hoteelada ay ku kulmaan madaxda dalka. Mahad Salaad ayaa waxaa la sheegay inuu Mahad Karataay kula kulmay magaalada Muqdisho. horena waxaa sirta Mahad Salaad loo gudbiyay Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka. Ilhaan ayaana sheegtay inay dacwad ka gudbinayso Mahad Salaad oo sirta dowladda si hoose ula wadaagay ururka Al-Shabaab. Mahad Salaad waa nin Al-Shabaab la shaqeeya una gudbiya siraha dowladda. ha yeeshee waxaa ku madax adeegay magacaabista Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka. lama oga qorshaha uu ka damacsanaa magacaabista Mahad Salaad iyo sidoo kale Mukhtaar Robow oo isagana Al-Shabaab haddana loo magacaabay wasiirka diinta iyo awqaafta dalka Soomaaliya. waa tahay daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen dunida media. haddii ay tahay markii kugu horeysay waxaan mar kale kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto gambaleelkana aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba aan halkan kusoo gudbino. like garee muuqaalka una sii share garee saaxiibada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba tan guud ahaan caalamka. halkan ayaad kala socon doontaa wax walba oo ka cusub siyaasadda. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani.